السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada walaalaha ku xiran Birol Islamic Media. waa walaalkin Cabdullaahi Maxamed Birole. waxa aan saaka jeclaysanayna fiidiyoon idinkugu soo gudbiyo 10 arrimood oo aad horumar ku gaari kartid. Mid koowaad, bilow sahlan. fuli fikradahaaga laakiin hab macquul ah. tusaale ahaan adoo ku bilaabaya maal yar iyo dejinta suurtagalka guusha ama guuldarooyinka. sidaa darteed ma lumin doontid dadaal badan ama lacag. waxaadna u tixgelisaa inay tahay cashar aad ka baranaysid waqtiyada soo socda. Midda labaad, qiimee darajooyinka yoolalkaaga. dejinta yoolalkaaga ugu horeeya oo aad raadraacdo horumarkooda maalin kasta. iskuna day inaad ka fikirto oo aad fikradahaaga isweydaarsato adigoo akhrinaya buugaag kuwaas oo gacan ka geysta kobcinta fikirkaaga. Midda saddexaad, ujeedooyinkaaga ka dhig mid joogto ah. hadayalsan yoolalkaaga inkastoo oo ay yar yihiin waxay u baahan yihiin tamar badan iyo fikri qoto dheer sida aad u malaynayso si loogu dhaqangeliyo habka saxda ah. Midda afraad waxa ay tahay diiradda saar caadooyinka maalinlaha ah. markaad diiradda saarto inaad fiiriso shay gaar ah ama caado aad had iyo jeer samayso, isku day inaad sidoo kale ku samayso hadafyadaada aad rabto inaad ku guulaysato. Midda shanaad, diiradda saar inaad eegto yoolalkaaga. adigoo diiradda saaraya inaad eegto yoolalkaaga, hadafyadu waxay u baahan yihiin feejignaan joogto ah iyo dib u fikir qoto dheer adoo rajaynaya in dhammaantood lagu guulaysan doono. Midda lixaad, weligaa ha joojin barashada. waxaad had iyo jeer wax ka baran kartaa dhammaan qaababka nolosha. marka mar walba naftaada ku caawi inaad barto sida ugu wanaagsan. Midda toddobaad, ka bax kelitalinta. u oggolaaw naftaada inay caawimaad ka hesho kuwa kale, ka hesho taageero, macluumaad iyo dhiirigelin, oo aqbal dhiirigelinta iyo talooyinka ay ku siiyaan. Midda siddeedaad, aqbal dib u soo noqoshada. oggolaaw cilladda oo isku day inaad u aragto inay quman tahay oo ah inay ku siisay fursad aad wax ku hagaajiso. Midda sagaalaad, ku kalsoonow qorshahaaga. kalsooni ku qabo in adkaysi aad ku gaari doontid yoolalka aad rabto oo aad ku gaari doontid iyadoon loo eegayn carqalad kasta. Midda u dambaysa, ku raaxayso shaqada iyo fikirka oo naftaada ka fiirso halyeega aad isku dayayso inaad ka guulaysato. waxaadna heli doontaa natiijooyin wanaagsan.